wacan daawadayaal meel walba dunida ka joogtaan halkani waa warsida TV qodobada wararka aanu idin haynana waxa ugu waaweyn farmaajo oo dalabyo cajiib ah hor dhigay qaar kamid ah ganacsatada Muqdisho oo kulan kula qaatay madaxtooyada Soomaaliya taliyii hore ee nisoo farmaajo ku eedeeyay inuu wada qorsho isaga horkeenaya mucaaradka iyo ra'iisul wasaare Rooble maxay ka wada hadleen taliye xijaar iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo Muqdisho kulan ku yeeshay dawladda federaalka oo shaacisay sababta keentay in dib loo soo celiyo xiriirka Soomaaliya iyo Kenya madaxweynaha Hirshabelle oo ka hadlay xaaladda deegaanadaasi kadib ku laabashadiisii Jowhar qaramada midoobo oo digniin culus ka soo saartay xaaladda Soomaaliya dimuqraadiyad noocee ah ayaa ka jirta Somaliland qodobadaas iyo qodobo kale oo xasaasiyad wararkayga ku dheehan doontaan haddii alla idmo intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii wararkayga ugu waaweynaa haatanna ku soo dhawaada warkii oo fidsan madaxweyne farmaajo ayaa dalabyo cajiib ah hor dhigay qaar kamid ah ganacsatada Muqdisho madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday farmaajo ayaa kulan afurina kula qaatay madaxtooyada qaranka qaar kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed waxaana ku bogaadiyay doorka ay ka qaateen horumarinta dhaqaalaha dalka xoojinta fursadaha shaqo ee dhalinyarada iyo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday ayaa tilmaamay in dawladdu ay ka miro dhalisay qorshaha lagu yareynayo musuqmaasuqa hantida dadweynaha iyo eexda dhanka shaqada taasoo xoojisay kalsoonida ganacsatada Soomaaliyeed ay ku qabaan hanaanka maaliyadeed ee dalka horseedna u noqotay in la joogteeyo mushaharaadka shaqaalaha iyo ciidamada dhankooda ganacsatada ayaa u faahfaahiyay madaxweynaha madaxweynaadkiisu dhamaaday saameynta xanuunka safmarka ee COVID-19 uu ku yeeshay dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee Soomaaliya iyo dhaqaalaha dalka mudnaantana ay siinayaan nabadda oo asaas u ah kobaca ganacsiga iyo sida ay uga go'an tahay in la sii ambaqaado qorshayaasha miro dhalka ah ee dib u dhiska dalka lana xoojiyo amniga si loo horseedo in ganacsigu uu sare u kaco kulanka waxa goobjoog ka ahaa wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle wasiiru dawlaha ganacsiga iyo warshadaha Cabdulqaadir Shariif Shiiquna Amaya madaxa rugta ganacsiga Soomaaliyeed iyo agaasim ku-xigeenka guud ee madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed taliyii hore hay'adda NISA ayaa farmaajo ku eedeeyay inuu wado qorshe la isaga horkeenayo mucaaradka iyo ra'iisul wasaare Rooble siyaasiga caanka ah mudane Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe ayaa waraysi cusub oo bixiyay waxa uu kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha soo kordhay ee doorashooyinka Soomaaliya oo hadda hanaankeedu uu mas'uul ka yahay ra'iisul wasaare Rooble ugu horreyn waxa uu shaaca ka qaaday in xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ay yeelatay waji cusub isla markaana ay sidii hore aad uga wanaagsan tahay sidoo kale Sanbaloolshe oo hore u soo noqday taliyaha hay'adda NISA ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha waqti xileedkiisu dhamaaday iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta isagoo tilmaamay in farmaajo uu rabo inuu Rooble ku baabi'iyo iyo xubnaha mucaaradka oo iska horkeeno ugu dambeyntii waxa uu ku taliyay ra'iisul wasaaraha inuusan qaadan talada farmaajo iyo ciidamadiisa si ay miradhal u noqdaan dadaalada oo haatan ra'iisul wasaare Rooble uu wado hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dawladda Soomaaliya ay mucaaradku ay ku heshiiyeen in magaalada Muqdisho laga saaro ciidamada si loo ambaqaado wada hadallada doorashooyinka oo mas'uuliyadooda dhabarka uu u ritay ra'iisul wasaare Rooble maxay ka wada hadleen Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo taliye xijaar oo Muqdisho kulan ku yeeshay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Xijaar oo ay wehliyaan saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa hoygiisa ku booqday gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur kulanka waxa laga wada hadlay qorshaha sugidda amniga musharaxiinta ee xilliga doorashooyinka xijaar ayaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur u cadeeyay in boolisku aanu wax shaqo ah ku lahayn weeraradii lagu qaaday guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur 2017 iyo kii ugu dambeeyay ee ka dhacay wadada Cabdiqaasin isla markaana uu ahaa mid filla Soomaaliya laga soo abaabulay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa bilaabay toddobaadkan dhamaaday inuu kulamo la qaato siyaasiyiinta mucaaradka kulamadaas oo xoog lagu saarayo sidii amniga looga wada shaqeyn lahaa warsida TV ayaa daawadayaal wali la socotaan dawladda federaalka ayaa shaacisay sababta xilligan ku soo beegtay dib u soo celinta xiriirka Kenya iyo Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa ka hadashay sababta ay dib ugu soo celisay xiriirka diblomaasiyadeed ee Kenya oo go'naa ku dhawaad 6 bilood kaasoo hadda dib loo bilaabay Khamiistii tagtay wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Cadaala oo BBC-da u warramay ayaa sheegay sababta Soomaaliya u ogolaatay in dib loo soo celiyo xiriirka Soomaaliya ay tahay inaan la ogolaan in dal kale uu dal farageliyo arrimihiisa gudaha xiriirka labada dal ayaa sidoo kale ka sii daray kadib markii uu soo cusboonaaday muranka la xiriira lahaanshiyaha qayb kamid ah xadka dhinaca badda Soomaaliya halkaasoo la sheegay inuu ku jiro kheyraad dabiici ah oo qiimo badan xambaarsan soo celinta xiriirka labada dal waxa la rumaysan yahay inay ka shaqeyso dawladda Qatar oo saami kula shirkadda Talyaaniga oo iibsatay qayb kamid ah xirmooyinka shidaal ee dhulbadeedka Soomaaliya iyo Kenya
ay sheegtay taasoo dhalisay shaki xoogan oo ku saabsan in labada dal ay qorsheeyaan heshiis maxkamadda ka baxsan. Ha yeeshee Al-Cadaala ayaa sheegay inaysan soo celinta xiriirka labada dal saameyn ku yeelan doonin arrinta la xiriirta dacwadda badda. Soomaaliya ayaa xilliga ay jaraysa xiriirka Kenya ku eedeysay inay faragelin siyaasadeed ku hayso arrimaha gudaha dalka, mana cadda ilaa iyo hadda wax iska bedela Kenya oo ay sameysay tan iyo markaasi oo ka duwan arrimaha lagu eedeeyay. Warsida TV ayaa daawadayaal wali la socotaan. Madaxweynaha Hirshabelle ayaa ka hadlay xaaladda deegaanadaasi kadib ku laabashadiisii Jowhar. Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle oo dib ugu laabtay magaalada Jowhar ayaa ka hadlay xaaladda bini'aadanimo ee ka taagan tuulooyin iyo deegaano ka tirsan magaalada Jowhar. Cali Guudlaawe Xuseen ayaa sheegay in xaaladda bini'aadanimo oo aad u daran ee xilligaani ay ka jirto magaalada Jowhar iyo tuulooyinka hoostaga kadib markii uu webiga Shabeelle ku fatahay. waxa uu madaxweynuhu sheegay in fatahaadda uu aad u saameeyay dadka ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe, sidoo kalena ay dareemayaan xaalad adag isla markaana dalagyada beeraha uu baabi'iyay fatahaadda webiga. Waxa uu ku baaqay in si degdeg ah wax looga qabto loogana hortago fatahaadda. Waxa uuna hadalkiisa ku daray in maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe looga baahan yahay inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka ka jira magaalada Jowhar iyo tuulooyinka hoostaga. Hadalka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe waxa uu ku soo aadayaa xilli magaalada Jowhar ay gashay xaalad go'doon ah isla markaana wax gaadiid ah aanay galan kana soo bixi karin Jowhar kadib markii xaafado ka tirsan magaalada iyo tuulooyinka hoostaga uu ku fatahay webiga. Dimuqraadiyad noocee ah ayaa ka jirta maamulka Somaliland? Horraamihii bishii Febraayo ee 2021 maamulka Somaliland waxay xabsiga u taxaabeen musharaxiin baarlamaan oo kala ah Maxamed Axmed Jaamac iyo Raaga Axmed Yuusuf oo xisbiga Ucud ka tirsanaa. Labada musharax waxaa loo sibrdhigay xiridooda in reeraha ay ka soo jeedaan musharaxiintani ay musharaxiin kale ku leeyihiin xisbiga Kulmiye. Sidoo kale 25 bishii Abriil ayaa laba musharax oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah mirdhaxo habeenimo waxaa lagala baxay guryahooda oo boolisku ay ka kaxaysteen, kuwaasoo kala ahaa Cabdullaahi Xasan Xirsi oo Ucud ka tirsanaa iyo Qaasim Aadan Saleebaan oo isna xisbiga wadani ka tirsanaa. haddaba ficilada xukuumadda Somaliland waxay u dhacayaan in musharaxa cidda soo sharaxda ay tahay reerka ee aanay ahayn xisbiga. kolka haddii ay sidaa tahana maxaa looga baahan yahay xisbiga iyo dastuurka? Shaqada xisbiyada iyo odayaashuna maxay kala yihiin? Marka aad u dhabagasho waxaa ku soo bixi in la isku wada raacsan yahay in doorashada dhacaysa 31 Maajo 2022 ay reero sharaxan yihiin. Xisbiyaduna waa iska yihiin magacuyaal, reerkuna qofka ay sharaxayaan ayuunbuu xisbigu sharaxaya. Waa afgarad u yaala dowladda Somaliland iyo qabaa'ilada halkaasi dega, laakiin meel bay iska qaban laayihiin. marna laguma fulin afgarashadaasi ilaa iyo hadda musharaxiin ka socota xisbiga xaakimka Kulmiye, odayaal reero oo mucayin ah oo isla og yihiin tiro go'an leh, meel loogu soo hagaagana leh, mana jiraan. sidaa daraadeed musharax walba odayaal taageersan kamana qaataan. waxaa intaasi dheer musharaxiinta muddada ay xisbiga ku jiraan lagu dirqiyo inay saxiixaan warqado ay kaga tanaasulayaan musharaxnimadooda, taasoo ah jaa'ifayn loo geysanayo xuquuqda madaniga iyo xorriyadda qofka. in sharciga oo la raacayo uu yahay rukun ka mid ah rukumada dimuqraadiyadda. ficilada xadgudubka iyo habdhaqanka diktaatooriyada ee maamulka Somaliland waxay dabeesha raacinayaan dastuurka dowladnimo ee lagu andacoonayo in dalku leeyahay. sideedaba fal-dhaqameedka madaxda ayaa macaaneeya fikirkooda. tusaale ahaan khudbadii uu bishii December 2020 madaxweyne Muuse Biixi ka jeediyay tuulada Agabar ee galbeedka Hargeysa ayaa daaha ka faydaysa fikirkiisa, dubaaqiisa hoose iyo aragtida hagta, taasoo uu ku tirabay doorashadii madaxtooyada ee 2017 ay reero ku tartameen, reerkiisuna ku guuleystay, reeraha kalena ay kaga adkaadeen doorashada. sidaa daraadeed waxaa Muuse Biixi uu ku baaqayaa in reerka laga guuleystay in ay libta reerkiisa aqbalaan, micnihii ka dhigan tahay in reerka ku guuleysta doorashada ayaa dowladda wada qaata. waxaana dadka deegaanka Somaliland intooda badan ay cabasho ka muujiyaan nidaamka maamulka Somaliland uu ku hagayo madaxweynaha hadda talada dalkaasi haya ee Muuse Biixi oo maamulka Somaliland ka dhigay meel ay leedahay reerkiisa, sida ay ku eedeynayaan odayaasha dhaqanka ee maamulka Somaliland deegaanada ku ah. qaramada midoobay ayaa digniin culus ka soo saartay xaaladda ka jirta Soomaaliya. qaramada midoobay gaar ahaan hay'adda cuntada iyo beeraha ayaa war ka soo saartay xaaladda adag ee Soomaaliya, iyadoo ka digtay daadad ku soo wajahan dalka, iyadoo laga baqdin qaba inay da'aan roobab xoog leh. hay'adda FAO ayaa sheegtay in webiga Shabeelle uu buux dhaafsamay isla markaana
uu karkaaraha jabsaday dhinaca magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle. Sidoo kale hay'adda ayaa ugu baaqday dadka degan hareeraha webiga inay muujiyaan feejignaan dheeri ah si looga fogaado waxyeello ka soo gaarta fatahaadda. Sidoo kale waxay hay'addu ku baaqday in si wadajir ah looga hortago daadadkaasi si loo badbaadiyo shacabka loogana hortago waxyeello ka dhalata fatahaadda soo noqnoqotay. Soomaaliya ayaa haatan wajahaysa xaalad adag oo ka dhalata arrimaha doorashooyinka, waxaana haatan ku sii darsama kuwa kale oo bini'aadanimo oo ka dhashay. guud ahaan warkii oo daawadayaal kala socoteen Warsida TV waa inaga intaan warkan xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tagay sidaa iyo nabadgelyo.